Tani waa sheeko ku saabsan sida shuban biyoodka uu beddelay tuuladayda. Cayayaanka ilmo-qabatada ee shuban biyoodka ayaa webiga dhex qaada oo ku faafa. Waa cayayaan aad u yaryar laakiin aad u khatar ah. Haweenku ayagoo dareemaynin ayay webiga cayayaanka shuban biyoodka biyaha ku soo dhex qaadi jireen oo guriga keeni jireen. Sidoo kale, duqsidu lugihiisa ayuu ku soo qaadi jiray jaamiska. Jaamiska shuban biyoodka waxaa kaloo faafiya gacmaha aan la dhaqin. Jaamiska shuban biyoodka ayaa biyaha cabayno noo dhex raaci jiray iyo cuntadaanu cunayno. Sidoo kale, farahana uu noo soo dhex raaci jiray. Shuban biyoodku si degdeg ah ayuu dadka ugu dhacaa. Subaxdii markay ahayd, aabbahay aad ayuu u ildarnaa. Shuban aad u badan oo roob moodid ayay ka soo dhacday. Aad ayaa u naxay. Gargaar degdeg ahaan u raadiyay si loo caawiyo. Weligay degdegan baaskiil uma kaxaynin. Markaan kalkaalisada caafimaadka keenay, waa iska garatay in waxa aabbahay hayaa shuban biyood yahay. Waa inaan si degdeg ah u shaqeyno si aan u badbaadino. Waxa loo baahan yahay cabitaan caawin kara. Marka ugu horeysa biyaha ayaan jaamiska ka dilaynaa si ay u noqdaan kuwa ilaashan. Waan filtareynaynaa markasta haddana ilaa 1 daqiiqadood qaadicinaynaa. Haddana 1 litir oo biyo ilaashan ah ayaa ku daraynaa malqacad nuskeed oo cusbo ah iyo 60 qaadadood oo sonkor ah. Dhadhankeedu waa dhadhanka ilmada oo kale oo cusbo badan ma laha. Waxaan aad uga cabsanayaa aabbahay anoo arkaya inuu igu hordhinto. Laakiin wax yar kadib wuu soo xoogeystay. Kalkaalisadii caafimaadka waxay ii faahfaahisay oo igu tiri, ruux kasto jaamiska shuban biyoodka liqa sida aabbaha ma wada noqdaan. Laakiin laba qoraaba cudurka way faafiyaan. Hadda waxaa waajib igu ah inaan tuuladeedii biyaha ilaashan u qaado oon waliba baraasida shuban biyoodka iska ilaalin lahaayeen. Waxaan arkay gabadh biyo wata. Markaan saa ku iri, biyaha jaamiska ka dil adoo ku daraysa dhibco klooriin ah oo haddana sug ilaa 30 daqiiqadood. Waxaa jira nin rabe inuu cunto cuno gacmihiisu wasakhaysan. Waxaan ku iri, waa inaad markasto soo xaajoodid gacmaha saabuun iyo biyo ilaashan ah iska dhaqdaa. Markaad cunto cunaysid, waa inaad isku ilaalisid gacmo aan jaamis lahayn. Waxaan arkay dad tuuladayda ka tirsan oo webiga jaamis shuban biyoodka ku shubay. Waa inaan musqulo ugu yaraan 30 mitir webiga ka fog qodanaa. Taasina nadaafada tuulada ayay aad u muhiim tahay. Waxaan arkay haween cunto jaamis leh wada. Markaasaan ku iri, horta waa inaan gacmaha ku dhaqanaa biyo ilaashan iyo saabuun oo marka kadib waa inaan cuntada dhaqanaa oo diirka ka saarnaa, karinaa oo marka kasta ayadoo kulul cunaa. Waana inaan ka ilaalinaa duqsida. Warkii ayay tuuladaydii wada gaarsiiyeen. Markaasaan ku noqday aabbahay si aan xaalkiisa u ogaado. Waxaan ku farxay inuu roonaado. Tuulada naadi waxay noqotay meel caafimaad badan. Biyaha waa iska miirnaa oo waanu karkarinaa si aan jaamis la'aantood u hubsano. Musqusha baanu dhegaysanaa xaajada. Markaan ka soo baxana gacmaha ayaa dhaqanaa. Duqsidu waan ka nabadgelinay. Cuntadu waanu diirnay oon dhaqanay oon karinay. Markasta oo ama cuntada karinayno ama cunayno, gacmaha ayaan dhaqanaa. Oo saasan tuulada shuban biyoodka uga ilaalinaa. Warkan dadka gaarsii, tuuladaaduba way noqon kartaa aan cudur lahayn.